waxay leedahay qisadeena maanta nin walba oo xiriir ii soo bandhigta markan mudooyin wada socono ama bilooyin waa nacaa ninka dhanba. tan waa qisadeena maanta waxay ka timid gabadh ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku xidhan barteenan YouTube-ka. walaalaha qaaliga soo dhawaada meel kasta dunida caleedka joogtaan waligana jacayl la socotaan waa Najax Channel. waxaa ilaahay wanaagsan oo aan ama maalin wanaagsan oo xilli kasta ku tabaxay waana wanaagsan insha Allah caafimaad qabtaan ee rajeynaya walaalaha. maanta waxaan noo hayaa qiso ama ila tali gabadh baa ila soo wadaagtay qaybta Facebook ayaana magacaasa ila soo wadaagtay soo dhigtay. waxay leedahay inantani abaayay soo ku soo qaada waxay tiri dhibaato ay haysata waxaan ahay gabar 29 sano jir ah aan wali guursanin nin walba oo xiriir ii soo bandhigta marka hore waan aqbalaa markaan booyin aan wada soconana ninka dhan waan nacaa oo waxa igu dhaca cudur qalbi xanuun ah isaga dhan adduunka ayaan u soo nacaa argiisa xataa wuu i dhibayaa tiri haddaan nin kale oo wanaagsan oo dabeecad leh oo diin leh ayaan haddana bartaa markaan isbarano haddana bilooyin kadib waan nacaa ninka oo dhan heer aan gaaray in aan dilo nacayb aan u qabo dartiisa. waxay tiri ugu yaraan 10 nin ayaan sidaas ku bartay xataa nimanka qaarkood si dhawahay ii jeclaayeen waan buriyay mid walba isagoo wax dambi ah iga gelin. waxay tiri guudhan waa la nacsiiyay kuma fikiray tiri mustaqbal inaan dhisto oo aan awlaad dhalo. ila soo tali insha Allah waxaad haysid sabab maqlaysan boolashin qaar qisada warqad ayaan ka akhrinayay posteena soo dhigtay barta Facebook aan ku leenahay Najax. marka walaalaha qaaliga ahsas inta soo dhahday insha Allah la soo taliyay bal waxaad kula soo talin lahaydeen dad la taliya maqsuudka lahaysana barta YouTube-ka nagula wadaaga oo halkaas kuma tigi insha Allah nagu soo qora hadii kalena nagu soo qora barta Instagram-ka aan ku leenahay Najax Channel 143 ama Najax Cabdirasaaq Facebook. inta hadaan ka gudbo walaasheen waxaan iri waxay talaa horta aan dhahay waan dhahay luuqan ka dhahay waan wada hadalnay si fiican oo wada sheekaysanay markaan eegayna xaaladeedana waxay soo baxday ama aniga Najaxaan u fikiray gabadhaas in xanuuno ruuxiya ama maaragtay jin ama il ama waxyaalo kale inay haystaan ama laga qabsaday maaragtay inay maxay loo diiday inay guursato ama hor u socoto. markaas insha Allah galeetlada kaliya si waxay tadanadii sheega ama la wadaago inay ducaysato inay diinta xagga diinta u badnaato saliga nabiga akhriso astaghfarsato quraan isa saarto suurat al-baqara khaasatan suuradaas waa suurad barakaysan waa suurad Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay maxay heetolay qisooyin badan xitaa ku soo arooraan sabab ognahayba suuradaas qofka akhrista wax kasta uu yahayba Ilaahay uu ka furfuraa markaas hada sixirka wax kasta qofka hadii wax loo sameeyay wuu furfuraa waana ka tagayaan waxa sadii Allah simtid hada taqaanida akhrisatidna kaba si fiican hada qooni wayna dhageysatid wayna baratid wayna ku dadaashid wayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaashatid wayna diinta xaggeeda u badnaatid markastana noqoto qof Ilaahay tala saarta hadii xisatid Ilaahay la hadashid xaggeeda u jeedsatid ما شاء الله قرآن كله وحكى في عن ملهن ما شاء الله إله كدبيبه الله كعافية إن شاء الله تعالى لا أعرف غرقبه أو نفسن الله هو صار ودعنا دبات الله ستة يوحى كور تاجن إلى كقرقاد أيام لا نهاي الله بركة لا نجيب داس ولا شيء ودعنا قبلها كلام مسلمات كابه يوحي نقرني وحنا نقرني بدمان إن شاء الله تعالى أصحابت قالقة هذي كانت لدينا ونلسو ذا كرتين برتا حقا سكومتيجة يد يقصو قد بنكرتين ترى قاعدنا حتى دمركو كوباد أتنا كارتيت هنا بليز معك عسنا سبسكرايب يسارتي فيه ولا إكسار سيشر قرا صحابت هذا فاملي قالوا ذاك
ومن هسنتهي وحدك يقتل سدا في أمان الله. أنت كل مدونة في فيديو بحيقة. باي باي.